Assalaamu calaykum. Sirta horumarka waddanka Maleeshiya. Hogaamiyaha ugu da'da weyn caalamka. Hogaamiyaha ay ku daydaan dhammaan hogaamiyeyaasha dunida. Hogaamiyaha Maleeshiya ka dhigay Maleeshiyada casriga ah ee maanta. Ku soo dhawaada mowduuc ku saabsan guulaha iyo waayaha ra'iisul wasaaraha Maleeshiya ee xilligan, Mahathir Mohamad. Haddii aad ku cusub tahay halkan, ha hilmaamin inaad naga mid noqoto. Riix subscribe kadibna taabo gambaleelka. waxaa isbuuc walba kuu soo dhici doona mowduuceena isbuuclaha ah insha Allah. Mahathir Mohamad waa siyaasi Maleeshiyaan ah, waana ra'iisul wasaaraha waddanka Maleeshiya. Wuxuu dhashay 10 Juulaay 1925, waana markii labaad uu qabanayo xilka ra'iisul wasaarenimada. Wuxuu qabtay xilka 1981, wuxuuna iska casilay 2003. waa ra'iisul wasaarihii uu xilka dheeraa waddanka Maleeshiya iyo qaaradda Aasiya. wuxuu siyaasadda ku jiray ku dhawaad 40 sano, laga soo bilaabo markii loo doortay xubin ka tirsan baarlamaanka Maleeshiya 1964 ilaa laga soo gaaro markii uu xilka iska casilay 2003. Mahathir waxa uu ku dhashay magaalo madaxda gobolka Kedah ee Alo Setar. iskuulka kadib waxa uu noqday dhakhtar. waxa uu xubin firfircoon ka ahaa ururka UMNO oo loo soo gaabiyay United Malays National Organization inta uusan noqon xildhibaan. waxay isku dhaceen ra'iisul wasaare ku-xigeenkii xilliga Tunku Abdurrahman, taasoo keentay in xisbiga UMNO laga eriyo. intaa kadib waxa is casilay Tunku Abdurrahman, wuxuuna ku soo laabtay UMNO iyo baarlamaanka waddanka Maleeshiya. 1976 wuxuu noqday ra'iisul wasaare ku-xigeenka. 1981 waxaa loo dhaariyay ra'iisul wasaarenimada kadib markii uu is casilay ra'iisul wasaarihii xilliga Hussein Onn. hogaamiyahan waa mid ka mid ah dadka ugu cadcad madaxda dalalka Islaamka ee casrigan, waana mid ka mid ah dadka ugu magaca dheer ummadda muslimiinta dhexdooda. waa horumaryaha dhanka dhaqaale, waxbarasho iyo tiknoolajiyadda dalka Maleeshiya. xilliyadii u horeysay Mahathir ra'iisul wasaarenimadiisa, Maleeshiya waxay gashay marxalad casri ah iyo horumar xagga dhaqaalaha ah. Mahathir Mohamad waxa uu door weyn ka qaatay horumarinta waddankiisa Maleeshiya, iyadoo ay ahayd dawlad beeraha ku tiirsan, wuxuuna ka dhigay dawlad ku tiirsan warshadaha. 1998 waxa uu gaaray guushiisii ugu weyneed marka uu dhaqaalaha waddanka Maleeshiya kor u qaaday kadib hoos u dhac weyn oo soo wajahay Maleeshiya iyo qaaradda Aasiya, isagoo lagu tixgeliyay istiraatiijiyadiisii dib u kabashada dhaqaalaha Maleeshiya ee keentay horumarka iyo bilicda maanta ee Maleeshiya. awoodiisu waxay timid markii uu kala saaray madax bannaanida garsoorka, awood dhaqameedyada iyo mudnaansiinta boqortooyada Maleeshiya. wuxuu soo rogay sharciga amniga gudaha, taa oo keentay inuu xirxiro dhaqdhaqaaqyo xilligaa jiray, shakhsiyaad diimeed iyo kuwa ka soo horjeeda siyaasaddiisa. Mahathir waxa uu ku guulaystay xakamaynta xorriyadaha madaniga ah iyo cadowgiisa ku aadan danaha reer galbeedka iyo siyaasadda dhaqaalaha, taa oo ka dhigtay xiriirka uu la leeyahay Maraykanka, boqortooyada Ingiriiska iyo Australia iyo waddamo kale oo badan mid aad u adag. wuxuuna mar walba dhihi jiray in aan lagu tiirsanaan cid kale, waayo haddii aad ku tiirsanaato cid kale waxaad galaysaa gumaysi, taa oo kugu qasbaysa inaad samayso waxa ay rabaan dadka aad ku tiirsan tahay. taa oo ka dhigtay siyaasaddiisa mid xor ah, horumar la taaban karana u horseeday dalkiisa Maleeshiya. ra'iisul wasaare Mahathir waxa uu dabdhaxaad u ahaa horumarka dunida saddexaad kadib markii uu ka tagay xafiiskiisa iskana casilay xilka, maadaama uu da'da ka daba imaanaysay. Mahathir wuxuu dhaleeceyn xoog leh kala kulmay taageerayaashiisa kadib markii uu booskiisa keenay Abdullaahi Axmed Badawi 2006, kaa oo ka filayeen inuu buuxin doono booskii uu baneeyay. hase yeeshee mar labaad ayuu booskiisa keenay 2015 Najib Razak, ra'iisul wasaarihii hore ee Maleeshiya. 29 February 2016 wuxuu Mahathir istiqaalada u gudbiyay mar labaad hogaamintiisii xisbiga UMNO. sidoo kale wuxuu iska dhaafay taageerinimadiisii maadaama uu aad u dhalisanaa ficilada uu sameynayay ra'iisul wasaare Najib Razak. waxaana Najib markii dambe ku soo baxay fadeexadii musuqa ee sanduuqa horumarinta ee loo yaqaano Barahaat. taa waxay dhalisay in bishii January 2018 Mahathir uu aasaaso xisbi cusub oo la yiraahdo PPBM,
kuna dhawaaqo inuu yahay hogaamiyaha iyo musharaxa xisbiga cusub doorashadii guud ee Maleeshiya 2018. xilligaa uu ka soo hooyay guul aad u weyn, waxaana Mahathir loo dhaariyay ra'iisul wasaarenimada bishii May 2018 mar kale, isaga oo jira 93 sano, taa oo ka dhigtay hogaamiyaha ugu da'da weyn dunida oo dhan. dadka Maleeshiya ee aad u soo dhaweeyay ku soo laabashada hogaamiyahooda ruuxiga ah, walow uu da'yahay, haddana waxa uu adkeysan waayay sida madaxdii uu keenay uga soo bixi waayeen wadadii uu jaxay xilli hore. Mahathir waxa uu qoray buugaag dunida caanka ah, qof walbana xiiseeyo aqrintooda, ka uu kaga hadlay khibradiisa hogaamineed iyo midda gobolka, waxaana ugu caansan buugaagtiisa The Malay Dilemma, The Wit and Wisdom of Mahathir Mohamad, A Doctor in the House iyo The Challenge. sidoo kale waxaa laga diiwaan galiyay oraayo hirgalay kuwa oo lagu daray diiwaanka oraayada caalamka, waxaana ka mid ahaa kuwa ugu caansan oraayadiisa. waddan aan lahayn dad wax yaqaana iyo dad xirfad injineernimo leh weligood ma noqdaan waddan horumarsan. ma aqbalayo in waddankan ay burburiyaan dad danaystayaal ah oo keliya ka fikira nafsadooda. qaladkii ugu weynaa ee nolosheeda aan sameeyey waxa uu ahaa in aan doortay Najiib Rasaaq inuu noqdo ra'iisul wasaaraha. markaad xukuumadda ku jirto waa inaad jinni ku ridaa mucaaradkaaga. intaas ayuu ka egyahay maanta mawduuceena. wassalaamu calaykum.